marka hore hambaliyo maalin weyn oo farxadeed weeyaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto farxad u tahay afarta sawir xagga saddex oday la doortay waa saddex oday oo experience weliba ogsoonada maalin labadana baa la doortay badankooda laylatul qadrigiina qaar baa ku beegnaa allayna waxaan maleeyaa dadka Soomaaliyeed ilaahay hayr la damcay Soomaali maanta inay meesha fadhida ka kacaysa weerta way raggaas oo ragga experience weliba ninka xasta Sheekh Maxamuud ee madaxweynaha loo doortay isaga madaxweynaha markay naga tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka la siyaar barbar dhigo mid walba taageero badan buu helay oo Soomaali oo dhan way soo dhaweeyay weliba madaxweynaha Farmaajo si ka weyn sidan oo kala loo soo dhaweeyay markii hore ee aad loo xiiseeyay haddana shanta Soomaaliyeed calanka ku taale shanta geesa mid walba garaafa odaygii hore gaasay Jabuuti waa tuu xiriir gow jaray تيكين يا ده سوالف تيكين يا كين يا وقت إسرائيلي أنا في محل أوغاني يو هدي لا يبغى يو وقت ده جهدي أرجع كيسال لو مش يعني كم يروح حلو يلا ما وصل لصاحب علي سؤال لا توقعون قبضتين ثلاثة كونفورت إسكبا أنت كونفورت حتى أيه واحد عدي يقطع والله يا الله الله كتشرو الله يجيب يه كوي كلام روح يو شبهه يا عيان مركب العويلة هورا شن سنة أو تقال يروح ده أو سيدي لفيلة عن نقوم يلقون لكن من كون حلقة بقى تشاهدوا وضعي قرينا خير الله سيلا يحبكم كيس عون بركانية ونسوا معرض بدن كيلو أي أمسن تهاي إنه يهاي نين نبضون كيل رمتها ما كيفك عاد إسكشيء كذي نبضون كيل رمتها وايد صراحة حكومة كانت بتمركز تستور كسريف بعيه ودي رايح بدي الصومالية ما من قبل هذا ضعنا صور السيئة habkii awood ahaan doonayay inuu dalka u mideeyo ama uu dee uga soo kiciyo meeshii hoose u joogay iyo habka uu maanta ololihiisa siyaasiga ah ku saleeyay marka xafladan saddexda oday ee la doortay saddexdu waa saddex oday oo khabiir ah oo dhacdooyin hore oo soo dhacay haddii khayr lala damcay Soomaaliyeed maanta ka kacdo raggii meesha ka saar lahaa bay la tahay ilaahayna ha ka dhigo aamiin dhaha waayo in badan baynu ku raagnay problemkan iyo dhibaatadan haddii halkaasi hagaagtaba Soomaaliya oo shanta Soomaaliyeed meel kasta joogto way hagaagaysaa waayo ama wuxuu la isku garan ama wuxuu wanaag u lagu kala tagi laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in madaxda ay la shaqeynay midka oo ay si fiican u taageerno oo Soomaalinimadu ay ka weynaato habkii ay u fikri jireen ee wadaniyad beena ama koox diineed oo iyadu wadankii ka soo jeeda marka waxaan leenahay hambaliyo ilaahay xukunkooda ha u barakeeyo hanow ka dhigo kuwo Soomaali anfaca oo meel wanaagsan gaarsiiya kana saara godkii iyo dhibaatadii ay ku dhacday ee muddada badan ku jirtay waana rajo weyn oo laga qabaa ilaahay rajada ha u dhameeyo aad iyo aad u salaamaya mar labaad waxaan leeyahay hambaliyo dhammaanteedna waa soo hambalyeynayna kale dawladani waxaan ubaynayna mulkiile inaan yeelanay ma rabaan ku tan ay noqonayso dawlad sharci oo sharciga ilaalinaysa sharciga ku socodka laakiin Xasan Maxamuud problemka ugu weyn ee qabsan doona ugu horeeya waxa weeyaan dad badan baa maanta ooyayo oo qaar baa kule ilmahayagii baa maqan qaar baa ilmahayagii la laayay dad badan baa dhibaato haysataa waxaanay ka tirsanayaan xukunkii hore iyo dad xukunka si qaldan u adeegsanayay xasan problemka ugu weyn ee guushiisa iyo guuldarradiisu ka bilaabmaysa waa sida uu dadka masaakiinta ee dhibana cadaalad ugu sameeyo kuwa loo haysta dhibkuna ay cadaalad iyaga laftirkooda u helaan oo maaha in la yidhaahdo deegaalka dilgabtiisana si badan cadaalad iyaguna waa inay helaan marka taa laftirkeeda halkuu ka bilaabaa iyada laftirkeeda ama mucaaradadiisu ka bilaabmay ama guushiisu ka bilaabmay laakiin waxay rajeynayaan ilaahay tawfiiqda inuu waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu